السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوق ملء جتان وحد سلامي ولكن علي معه الشريف يدنعي وحفظ الشيخ آدم الشيخ أحمد إن شاء الله تعالى سيدا عادنا وإهات إن هوين كست أم هل حديث أم لا حديث أم سيدا حديث وحي إله نفوضي إن قاضنا إن أن كعمل فلنا إن أن نكون ضكي أو عبادة ولا أقبل إن شاء الله تعالى تاس إله كرجنا إن شاء الله قف كعصب channel كان على معه قبل الكسار سبسكرايب سمي سي المستقبل كأبو فأديد أذيك إيوه فملكاي عروته إن شاء الله تعالى هذا ما بدنا إن شاء الله تعالى وحنا نعرف الشيء أحمد إن شاء الله ونعاون كهلنا حبك آذابك حبك نفط الله هبايو نفط سلو آذابيو أن كان إن شاء الله تعالى بشأن إنه كسوده إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرض سلام يا ولد الميلان شوق نبأ إن شاء الله تعالى وعاوية مركلة إن شاء الله تعالى موعد ير بين سوق بيننا هو إن شاء الله إلى هنا ينقو أنفع أساسا ودي سنة يا ربي سبحانه وتعالى وحاوية ولا ليال عاوة موعد هذا سوق بيننا عاوة وقابا وحاوية الأدب مع النفس النفس قاب كله إدبيو إلهي سبحانه وتعالى النفتين عدو كوين متشيرو إلهي مركو قراك ينوش شيئا وحينا نفس الأمارة بالسوء نفتي إنه واحد الأمر يساحمان هذه قربة وحا أباهن دقالك إيا جهادك إيا مقرنا يسا إن لو حربك شوكتدو وحاوية ونفته ويان saa awgeed marka qofku aduusan naftiisa ka warqabin oo naftiisa uusan cilmi u lahayn oo naftiisa uu soogan in iyadu cadab ku tahay ma badbaadi karo sharkeeda kama badbaadi karayo saa awgeed walaalayaal marka ugu horeyso qofku inuu naftiisa qofku inuu tuhmo weeyii oo naftiisa uu ka cabsado liana waxa weeye naftu ilaahay wuxuu inoo sheegay inay tahay cadawga koobaad mar haday xumaan ku amrayso waa cadawga koobaad saa awgeed marka waxa weeye waxay u baahan tahay marka qaab loola tacaamulo iyo qaab oo loola dhaqmo iyada iyo qaabkii iyada loo tarbiyeyn lahaa baadu edbin lahayd ayaa markaa muhiim ah qofka mu'minku markaa inuu ula tacaamulo waxa marka weeye walaalayaal muhaasabatu nafsi nafta in la xisaabiyo waa qodobka u horeeya weeye toddoba qodob baynu markaa kula macaamilaynaa nafta qaabkaan u tarbiyan lahayn waxa weeye toddoba qodob baan kula macaamilaynaa qodobka horeeya waxa la yiraahdaa muhaasabatu nafsi nafta in la xisaabo daa'ima nafta inaad xisaabto oo naftaada aad xisaabiso liana rasuulku xulli sallallahu alayhi wa sallam xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu naftiina xisaabo intaan la idin xisaabin marka qofka waajiba u bariya gabalkeena waa u dhacay waxa loo baahan yahay maanta saacad baa maray waqtigii maanta maray inuu habeenkii markuu gabalku dhaco naftiisa inuu xisaabiyo maanta wixii khayr uu sameeyay ama xumaan ka dhacay ama taqsiir gaabin uu ku sameeyay ama looga baahnaa ee uu gudan waayay waxa weeye inuu naftiisa xisaabiyo waa muhiim markaas waxa soo baxaysa qofku marka ceebihiisa iyo wanaagiisa markaas markaa inay helayaan waxa weeye qodobka kale ee labaad waxa weeye siyaamul ithnain wal khamis qofku inuu soomo oo nafta lagu tarbiyeeyo maalinka khamiista iyo maalinka isniinta in la soomo waxay kamid tahay tarbiyatu nafsi bay kamid tahay nafta edbinteeday kamid tahay qaabka loo edbiyo nafta labada ayaamood oo rasuulku inoo suneeyay sallallahu alayhi wa sallam la yidhina acmaasha la bandhigaayo acmaasha loo bandhigaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saa awgeed markaa rasuulku wuxuu yidhi acmaashiina waxaa la ii bandhigaa oon arkaa buu yidhi khamiista iyo jumcada haddaan wanaag ku arkana waa ku farxaa haddii aan xumaan arkana waan ka naxaa buu rasuulku yidhi waa i xumeeyaan ummadayda yaa la ii bandhigaa acmaasheeda nolosha barsaqa rasuulku isagoo ku jira ayaa ummadiisa waxaa loo gudbinayaa acmaasheeda markaasaa rasuulku wuxuu leeyahay haddaan wanaag arkana wanaaggaasi waa i farx gelinayaa haddaad ummadayday tihiin oo camalkiinu khayr noqdo hadduu camalkiinu xumaadana waa ima farx gelinaya buu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wa sallam saasoo kale
qodobka saddexaad waxaa weeye qiyaamu leyl nafta in lagu tarbiyeeyo habeenkii salaatuleyl in loo kaco salaatuleylka waa muhiim waxay ka mid tahay tarbiyatu nafsi qaabka waxaa ka sheekeeya nafta loo tarbiyeeyo oo rasuulku uu inoo suneeyey sala allahu calayhi wasalam oo aynu ka qaadanayna dhaqankii rasuulka iyo sunnadii rasuulka aynu ka qaadanayno qodobka afraad waxaa weeye adkaaru sabaaxi walmasa qofku inuu akhriyo adkaarta subaxda iyo adkaarta galabtii lianna ruuxa ilaahay wuxuu siiyey difaac iyo ilaahay ruuxa wuxuu siiyey gaashaan buu ina siiyey subxaana wa tacaala gaashaankeenna iyo difaaceennuna waxaa weeye waa xirsi-xidhkuna waxaa weeye adkaarta labada waqti laynoo suneeyey oo rasuulku yidhi isku xijaaba oo sharka iyo masaa'ibta iyo balaayada iskaga xijaaba insi iyo jinniba sharkooda iskaga xijaaba rasuulku uu yidhi iyo masaa'ibta kaleba marka xirsi-xidh baa leeyahay qofka marka waa inuu xirsi xidhaa salaada maqrib iyo salaada subax labada waqti adkaartooda qofku waa inuu markaa uusan ka tegin iyo xuska ilaahay subxaana wa tacala iyo xirsi-xidhka qodobka shanaad waxaa weeye salaatu duxaa qofku inuu salaada duxada tukado barqadii weeye salaatu duxaa salaatu alawaabiin baa la yihahdaa salaatu alawaabiin baa loo yaqaanaa salaada dadka toobada badan ee ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala ayaa salaada ka dhaqan yeesho ka caada yeesha oo salaada tukada oo laazima salaada marka aad baa loo amaanay salaatu duxada la yiraahdo fadaa'il gaar lagu leeyahay hadda intaan aan ka sheekeynayno dhanba waxay walaalayaal leeyihiin fadaa'il gaar laakiin fadaa'ishooda hadda kuma sii fogaanayna waa on qodob baan u sheegayna qodobka lixaad waxa weeye tadhiiru alqalbi amma yaghdab ar-rabb jalla wa ala waxa weeye qalbiga in la daahiriyo oo qalbiga la saafi yeelo oo qalbigu waa weel markaad wax ku shubaysana waa la xalaa waa la nadiifiyaa haddaba qalbi nishaasaysan oo wasakhaysan ilaahay in lala hortago ama camal khayr u galo ama camal khayr ka soo fulo uma suubado ama ilaahay camalka ka imaanaya aqbalo saa awgeed marka ilaahay waxaa lala hortagi karaa weel daahira weel nadiifa wanaagsan qalbiga marka in la nadiifiyo xiqdiga iyo xasadka iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo dunuubta iyo ma garanaysaa waxaasoo dhan in qalbiga laga nadiifiyo iyo cadaawadda iyo waxaasoo dhan iyo dhanniga xunka ah iyo waxaasoo dhan qalbiga ruuxu inuu ka nadiifiyo mu'minka ah oo ilaahay qalbiga u saafi yeelo si camalkiisa markaa loo aqbalo ayaa iyadana markaa ka mid ah tarbiyatu nafsi qodobka toddobaad waxaa weeye aklul xalaal xalaasha in la cuno qofka inuu xalaal quuto lianna rasuulku wuxuu yidhi qofka ilahay wax ka aqbalo waa qofka xalaasha quuta qofku hadduu xalaasha quudan waayo waxba la aqbali maayo sida rasuulku inoo sheegay subxaanahu wa tacaala qofka xaaraanta cuna waxba laga aqbali maayo ayaa rasuulku yidhi waa kii arkay rasuulku ninka ilaahay baryaya markaasu wuxuu leeyahay ilaahay buu baryayaa gamcuhu taagayaa wuxuu rasuulku leeyahay wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waqdiyu bilxaaraam fanaa yustajaabu rasuulku yidhi wuxuu cabayaa waa xaaraan wuxuu cunayaa waa xaaraan wixii lagu soo koriyeyna waa xaaraan fa anaa yustajaab see loo ajiibayaaba rasuulku yidhi marka madcamka iyo mashrabka ruuxu wuxuu cabayo wuxuu cunayo iyo maskankiisa iyo wixiisoo dhan inuu markaa ka xalaal yeelo oo nadiifiyo iyadana waa muhiim toddobadaa qodob waxaa la yidhahdaa tarbiyatu nafsi bale qaabka nafta loo tarbiyeeyo weeyaan faahfaahinteeda insha allah mar kale aan gelaynaa walaalayaal ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu inuu afco dhammaanteen babaaraka allah fiikum wajazakum allahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته